qaar ka mid ah beelaha deegaanka gobolka Sanaag ayaa waxa ay sheegeen inaysan ka qayb galin munaasabadii lagu caleema saaray madaxweynaha cusub ee Somaliland sida faahfaahinta warkan oo inoogu soo diray wariyahayaga Cabdullaahi Xuseen Darwiish. madax dhaqameed waayeel iyo waxgarad kale oo ka soo jeeda qaar ka mid ah beelaha ku dhaqan gobolka Sanaag ayaa shir saxaafadeed maanta gudaha magaalada Cergaabo ku qabtay waxay halkaas ku cadeeyeen in beel ahaan aanay ka qayb galin munaasabada caleema saarka madaxweynaha cusub ee Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee maanta Hargeysa lagu qabtay sidoo kalena aanay jirin cid ay u igmadeen oo munaasabadaasi kaga wakiila beelahan waxayna sidoo kale ka hadleen halka ay marayaan shirar ay ka tashi oo hadalhayntoodu bariyaha madhagaha bulshada ku soo dhacaysay iyo arrimo kale waxaana iyagu arrimahaasi ka hadlayay gudoomiyaha beelaha Habar Wasbari Cabdinaasir Ali Jaamac afhayeenka beelaha Habar Wasbari Yuusuf Nuur Nabadon Maxamuud Dir Xasan iyo xubno kale oo halkaasi hadalkiisa ka dambeeyay hadalladooda ka mid ah sidan shirkan jaraayid ee aanu saaka halkan isugu nimi waxaanu runtii ku cadaynaynaa annagoo ah waayeelkii iyo waxgaradkii guddidii guud ee beelaha Habar Yoonis Bari maanta waa tal caleema saarka uu ka socdo Hargeysa ee Muuse Biixi run ahaantii annaga cid hadda annaga nagu matelaysa oo xaggaa naga joogtaa ma jirto cid naga joogto oo hadda xaggaa nagaga maqan oo nagu mateli kartaana ma jirto horeysiya dambayso talada Habar Yoonis Bari beelaha Habar Yoonis Bari Cergaabana Cergaabay taala meel kale oo cid kale ku mateli kartaana ma jirto cid ma dindhiga haystaana ma jirto shirkii hore baaqiisi mudaynta iyo wax walbana waxaanu isla sugaynaa ilaa shir buu ahaa uu gudoomiyihii xusbiga ka waayeelyahay soo noqodkiisa shirkiina waa sidiisii kan kale waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha casumaadiisa cid naga joogta oo reer bari oo naga tirsanaya ma jirto hadeerna waxaanu doonaynaa annagu gobolka iyaganu dib u dhacay inaanu halka kaga tashanno ciddii aanu kala maari weynayna halka aanu ka wada tashanno dhibaato kale oo aanu wadnaana ma jirtee masiirkii gobolka Sanaag baanu ku hadlaynaa mowqifkii horeenu cadaynay horuu caddaa iminkana wuu cad yahay caleema saarka Muuse Biixi lagu caleema saarayo Hargeysa midaanu annagu shaqo kulena horeenu cadaynay maaha mid Habar Yoonis Bari lagu metelayo cidda joogtana maaha waa mowqif cad gogashii shirka aanu hor ugu baaqnay wada tashigu ee gobolka Sanaag sidii uu taal haddaanu nahay gobolka Cergaabo Habar Yoonis Bari beelaha Habar Yoonis Bari cid naga meteli karta halka oo oranaysa annaga ka mas'uula ma jirto cid aqbashaana waxaanu leenahay arrintaas waa arrin adag taladii halkay taala gobolkii halkan uu joogaa cidii dani naga dhaxaysayna oo horumarka gobolkana waanu ka wada hadlaynaa laakiin hadeer beelaha uu Habar Yoonis baanu nahay beelihii kale waa noo dambeeyaan iyo horumarka iyo wixii aanu ka qaban lahayn waanu sheegnay masayrka Habar Yoonis Bari haddaanu nahay talada iyadu waa talada go'aansan ee odayaashu ka hadleen ee sida mugala uga hadleen weeye talada iyadu waxay Habar Yoonis Bari gogosh heede masiirka dalkan u yaala halkan gogosh taala sida loo sheegay nin kale meel kale ku materi kara ma jiro sida odayaashu u sheegeen waxaan kala cadeen ninkan nidaam dawladeed ku tagawa gaar tii qabiilkan ku hadlaa Habar Yoonis Bari ninkan nidaam dawladeed ku tagawa gaar laakiin ninka Habar Yoonis Bari qabiil ahaan Habar Yoonis Bari halkan ay taala halkan masiirkeedii yaala halkan ninkii doonaya u imanaya nin kale meel kale ku materi kara ma jiro sidii nidaamka loo sheegay beelaha kale iyo shirarka kale nidaamka sidii u taagayeen anagoo gudoomiyaha Habar Yoonis Bari ba taasaan cadeeyna Cabdullaahi Xuseen Darwiish Somali Cable TV Cergaabo